السلام عليكم شيخ مختار. وعليكم. أفرك معاه شيء بين شكرا. ما أنا بين شيخنا رج شباب كتير سنة أنتنا سووا حدا شيخ مختار دبرك وكذا وعيها قلنا لو sheekh mukhtaar roobo oo loo qalqaalinayo inuu noqdo wasiirka ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare xamse cabdi barre xabsigana laga sii dayn doono waa dilaagii dhameeyay shacabka Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya 1 milyan deysmada mukhtaar roobo Abu Mansuur waxa lagu xumaynayaa xabiibul malaayiin farmaajo oo isagu markii uu arkay roobo inuusan arxan lahayn naxariisna lahayn xiray fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena xaqiiq TV subscribe saaro muuqaalkan meel fog gaarsi oo la wadaag saaxiibadaada si xogii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrinka deysmada mukhtaar roobo Abu Mansuur oo jeel ku yaala Muqdisho laga sii dayn doono ay u ogaadaan saaxiibadaada halkani waa xaqiiq TV mahadsanidin أميرك حجانكي هراء الشباب الشيخ مختار روب وعلي أبو منصور وتاني الله بدي يكون يسدد يتوانكي حبس جوري وجري الدولة الصومالية أي حمنا يسكت ديجان يهين وجوهريو قدوميها قلها شعب كبرلمان كصوماليا شيخ هذا المذوبة ويسكت قليهين وحيدون يان إن حبس جلجسي دايو لجنا ديجو وزير كدين تيوقفته يلا دجالن كفكر كحجرك الدولة فدرال كصوماليا ونكم النقضة قلها وزير هذا مجعبستو ده اللجسوجا رئيس الوزراء حمزة عبد برre وأرين لياب له إن الشباب صومري أو دميي الشعب الصومالي أو كرو دافع 1 مليون إن دولته وهجامين أيو حسن شيخ محمود أو يسوق مركزي ودن كالصومالية أن وحوجي كلهين إن أرجع حسدي كشرت حبسية أيو حبيب الملايين حرية فرماجه إنه حبسية أنت كسي دايو حلو ديبو هذا ويرادو معمول الشعب كالصومالية أي وحي أبورتي ضد أدا أحوجن أو شعب كالصومالية ده إسلام أحمر ريال كواس ولا كم وجهنا إن دولة حسن شيخ محمود أي مركزي ودنك أي سيما مشو وعنا شعبك الصوماليين أي شيئين إن مرنا بايسن وباهنين إن حسن شيخ محمود هديت لبضع سيوكو رغاقو إن ودنكو سيما ملو أو مركزي مدحوين كسي نغضو ما دام ضدكو أي شيئين إن يقدر صدين أما مركزي أي تبيان حبيب الملايين محمد عبد الله فرماجو مدحوينيه السقالات سومرية ودنك الصومالية تانية بربركي دولة دحية الصومالية روبو أي أبضنتا إن حبسك لغسي دين دونو maadaama uu kolkii horena u xirnaa arrimo siyaasadeed ee tartankiisa kursigii madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya kol horena uu ka tanaasulay fikirkii shabaab oo uu ka soo goostay waxaase muran ka taagan yahay in Mukhtaar Roob Abu Mansuur sii deyntiisa kadib wasiir laga dhigo in kale ayaa waxa ka taagan muran aad iyo aad u xoogan waxaana dadka arrimaha siyaasadda geeska Afrika ka hadla gaar ahaan Soomaaliya ay sheegayaan inay aad uga xun yihiin isla markaana walaac xoogan ay ka muujinayaan deysmada Mukhtaar Roob Abu Mansuur oo maanta shabaabka dhibaataynaya wadanka oo isagu markaasi hormuud u ahaa dad badan oo Soomaaliyeed uu galaaftay hooyooyin badanna iyo sidoo kale ciroolayaal badan oo aabayaal ah uu ku siiyay gablanna uu ka dhigay Mukhtaar Roob Abu Mansuur waxa uu markaasi isagu uu xubin sare ka ahaa al-shabaab isla markaana gobolada dalka Soomaaliya ayuu ka dagaalamay oo waxa uu dagaal toos ah oo kafool ah la galay dawladihii Soomaaliya wadanka oo markaasi ay madaxweyne ka ahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed oo xiliyadaasi wadanka ay ka jireen dagaalo aad iyo aad u qaraar oo al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dawladda oo garabsanaya ciidamada AMISOM ee nabadgelyada u jooga Soomaaliya oo la galay waxaana markaasi dagaaladii ula galay dawladda ay noqdeen kuwa ku soo dhamaaday guuldaro oo waati uu hoodka galay wax badan oo uu hoodka ku jira mar uu naftiisa la baqay ayuu dawladda inta isku soo dhiibay waxa uu markaasi sheegay in la cafiyo waxaase dawladdu ay ogaatay waxyaabaha u qarsoon dabeedna xabsi ama jeel ayuu u dhaadhiciyay madaxweyne farmaajo oo isagu markaasi madax ka ahaa dawladda xilligaasi jirtay ee markaasi ka horeysay dawladda haatan wadanka ka talisay Xasan Sheekh Maxamuud oo hormuudka u yahay ama madaxweynaha uu yahay dad badan oo arrimahan ka faalooda ayaa waxay markaasi sheegeen talaabadaas hadii uu qaado Xasan Sheekh Maxamuud inuu markaasi noqon doono madaxweynihii ugu horeeyay ee ku fashilmay wadanka Soomaaliya tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Rashid Aadan Madoobe ayaa ka hadlay mowqifkiisa ku aadan xirnaashaha wadaadka Mukhtaar Roob oo xiran dawladda iyo sidii dawladda Soomaaliya ay ka yeelayso xarigiisa gudoomiyaha oo isaga oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gudoomiyaha ahaan uu horay u cadeeyay mowqifkiisa isla markaana Mukhtaar Roob si sharci darro ah ay u xirtay dawladda uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa hadalkiisa uu intaasi ku daray in Roob uu ahaa nin leh hami siyaasadeed si uu hogaamiyo maamulka koonfur galbeed hayeeshee iyadoo aan wax maxkamad ah
oo dambi ku haysata la soo taagin u xiran yahay dowladda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka tashan doonto xarigiisa isla markaana dhawaan ay go'aan ka soo gaari doonto. horaantii bishii December sanadkii 2018 ay dowladda uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo adeegsanaya ciidamada Ethiopian ah ay waxay magaalada Baydhabo ka soo xirtay Mukhtaar Robow oo xilligaasi ahaa musharax madaxweyne koonfurta. waxaa noo suurtoobay inaan maaragtay muddo ku dhawaad 4 sano ah inaan la kulanno Sheekh Mukhtaar aan soo aragno oo aan isla soo qaxweyno oo aan la soo sheekaysano jawigiisa guud ahaan wuu ficnaa wuu faraxsanaa caafimaadkiisii wuu ficnaa inta maaragtay uu noo sheegay haddii annaga medical check-up maaragtay lama samaynine dhakhaatiirna maanan ahayn marka alxamdulillah waana markii ugu horreysay 4 sano ku dhawaad uu ka soo muuqdo baraha bulshada tan iyo 13 bishii December 2018 oo markaa Baydhabo laga soo afduubay. yaa idin fududeeyay la kulankiisa muddooyinkanba sida aad la socotid shiilow bil iyo ka badan miyaa isgaarsiin ayuu haystay telefoon ayuu haystay maaragtay eheladiisana way la xiriirayeen inkastoo markii maaragtay ugu horreysay oo annaga aan u tagno ay tahay laakiin haddana way noo suurtowday inaan maaragtay u tagno shalay jimcaha ah oo aan la soo sheekaysano maadaama culeysyadii faraha badnaa aanu jirin oo dalku maaragtay isbeddel iyo doorasho ay ka dhacday. hore hay-adda sirdoonka ee NISA waxay u sheegtay in Mukhtaar Robow ay ku bixiyaan lacag badan oo matalan uu jaamacad dhigto noloshiisuna ay iska degan tahay markii aad la kulanteen waxyaabahaasi ma ka arkayseen? waa run inay mar sheegeen in jaamacad uu dhigto oo maaragtay noloshiisii ay fiican tahay laakiin waxaa sida ay u sheegayaan uma wada jirin. nin maxbuus ah oo aan isgaarsiin haysan oo aan dadkiisii ka warhaynin ayuu ahaa. haddana waxyaabaha ay fududeeyeen waxaan u malaynayaa oo isgaarsiinta ay siiyeen waxaasoo dhan isbeddelka dalka ku socday maaragtay ayaa ka keenay. wuu ii sheegay in macalinka jaamacadda marmar u yimaado oo uu dhiganayo inkastoo marna maaragtay ii sheeg xilliga uusan rabo uusan helaynin haddana maaragtay jaamacaddii waa dhiganayaa laakiin maaragtay nolol oo mustakafi ah sida ay sheegeen dhaqaalaha lagu bixinayay ay sheegeen ilaa $7,000 inay bishii ay ku bixinayeen ay tahay meesha igama muuqan wejigiisina maaragtay isha waa laga garan karaa. raje intee ah ayaad adinku ka qabtaan sii deyntiisa hadda? shiilow madaxweynaha hadda la doortay oo dhawaan xilka la wareegi doono mudane xasan sheekh maxamuud waa la ogaa Soomaali meel kasta maaragtay marar badan maaragtay isagoo ka hadlay arrinta afduubka Sheekh Mukhtaar Robow inuu yahay maaragtay ii sheeg afduub siyaasadeed mowqifka madaxweynaha uu ka taagnaana waa la ogaa sababta